طبعا قيبت لبعض وركبوا على دي عبد الرزاق وبرنامج كان عنده فلقين تجمعها ورفدي تي في سوماليا tobankii sare ugu dambeeyay wax waa u qabsoomeen wax fiican baa inoo qabsoomay runtii waa jirtaa in ay saddexdii madaxweyne ay runtii kala fiicnaayeen wax qabadkoodu aad u kala fiicnaa waxyaalaha xilli inaga khasaaroobay iyo xilli inoo bulaalaba waa jiraan laakiin se horu socodka dawladnimada Soomaaliya waxay bilaabatay maalintii fila Soomaaliya dawladda la keenay cid kasta waxa keento waan ognahay dhibaato xoogan inay ka dhalatay imaashihii laakiin se dhibaato kale oo ka weyn ba iyaduna ama dhibaato kale oo weyn ba iyaduna meesha ka baxday oo ahayd kala qoqob ururo hogaamiye kooxdo masiibo waxyaalo badan baa meesha ka baxay si kastaba ha noqoto dawladihii saddexda hay Soomaaliyeed midaan wax qaban ee ugu dambeeyay saddexda madaxweyne ma jirin laakiin se markay noqoto institutions taagan oo inoo dhismay shantii sano ugu dambeeyay institutionska inoo dhismay waa kuwo lagu meel gaari lagu tanaadi karo laguna soo meel gaaray laguna maartay lagana si dheereey karo way institutionska inoo dhisan maanta waa hay'adihii ciidamada afarta wariyahaad ee ciidamada afarta waaxood ee ciidamada inoo dhisay military baa inoo dhisan inoo unkan oo inoo dhisan barbilow lambar aad u fiican oo hadii la joogteeyo in la maintain gareeyo oo la sii tababaro oo la sii hagaajiyo la qalabeeyo cunaqabataynta laga qaado la xoojiyo la sharfo hubka iyo saanada iyo dhaqaalaha ay u baahan yihiin iyo caafimaadkooda iyo wanaajintooda iyo hanuunintooda iyo waxbaristooda la sii wado waa meel aad fiican ka taagan hay'adda dhinaca warwareynta iyo sirdoonka National Intelligence Service ayaa inoo dhisan iyaduna يعني waxa taasuna inay ka mid tahay inaynu maanta heli karno xogo inugu aadan gobolka oo dhan hay'adda militariga xitaa ee sirdoonka inoo dhisan adduunka kale hadda heshiis la geliya wadalkiin shalay toole in hay'adda sirdoonka qaranka qaybta militariga aan dhaho military intelligence service qaybta la yiraahdo Soomaaliya in wadamadii kale bartamaha iyo bariga Afrika ama wadamada bariga Afrika oo dhan ay heshiis la saxeexdeen haddaysan ogeyn inay xog hayso xog keeni karto wax qaban karto cidna heshiis lama saxateen shirna laguma soo dareen waa guulaha aynu gaarnay hay'addeeni ayaa hay'adda tobnaad lagu soo daray oo xogo la wadaagtay wadamada waaweyn ee Pakistan iyo Mareykan iyo kamid yihiin xogo la wadaagtay hay'addeena nisa samoogtay inay hay'addeenu kulamo la yeelatay hay'adahaas ugu waaweyn oo xogays dhaafsadeen oo xogihii ay keentay Soomaaliya ay noqdeen kuwo laga hortagay dhibaatooyinkan inagu hadda maalin walba arkana kuwo ka waaweyn laga hortagay wadamada qaarkood dhibaatooyin ku socda ay keeneen oo xogo ay warwareeyaan keeneen oo ay u shaqeeyaan dad afaf kala duwan yaqaan af walba dad yaqaan ay hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya maanta u shaqeeya waa hay'ad iyaduna way dhisantay maamul bay yeelatay miisaaniyad maaliyadeed bay yeelatay xarun bay yeelatay dabcan waxay tahay taliyaal bay leedahay waxay leedahay waaxyo kala duwan wada shaqeyn caalami iyo database ay leedahay waxay hayaan xogta waxay maamulaan ammaanka dalka qaybo kamid ah sida airport oo kale yaani meesha aynu marno maanta waa meel aad iyo aad u fiican waxay ka hortagtay lacag wada kale soo gali lahaa waxay qabteen lacagii aad ogeydeen yaani maanta hay'adda Soomaaliya inoo dhisanta hay'addii waxay inoo dhisan iyaduna booliiska Soomaaliyeed oo maanta madax banaan oo maartay marka xitaa khilaaf ku dhacay la arkayay sida ay taliyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo hay'addaas ay u shaqeysay oo qof walba ay ugu tagtay oo ay arinta dhaxdhaxaad uga noqdeen oo madowga musharaxiinta han noqoto oo iyagu xitaa iyaga la aflagaadeeyay oo weerar lagu qaaday shakhsiyadeed oo si walba loola hadlay haddana aysan waxaasi gubin ku argoosanin waxba aysan sameeynin laakiin ay u soo arkeen yihiin hay'ad rayid ka u shaqeysta Soomaaliyeed ciidankii booliiska wadooyinka taagan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu dhahay Jarnax Xajaar maalin walba taliya qof booliis la dilaa isagoo wadanka difaacay wada taagan baa la dilaa macnaha taas waxay muujinaysaa in ay hay'addaasuna ay dhisantay maanta inoo taagan hay'adda garsoorka inoo dhisan hay'adda garsoorka Soomaaliyeed ayaa inoo dhisantay oo dad professional ayaad arkayseen in ay ahaayeen hay'addii garsoorku ayadoo mucaaradkii dawladda sida weyn uga soo horjeeday ee aad ku diidanaa ay meel walba la taagnaayeen lahaayeen waa kangaroo court waa maxkamad maxay tahay sheeg gacan ku rimisa ayagoo meel walba la taagnaa in labadii shay ee dawladdan farmaajo intii jirtay ka dhanka hay maxkamadda la geeyay labadii maxkamadda waa laga guuleystay dawladda Soomaaliya laga guuleystay dadka meesha joogo dhan waxa magacaabay farmaajo badankooda baa magacaabay way inay madax garsoor baa dhismay hay'adda garsoorka maxkamadda dastuuriga ahayd in ay dhisanto mooyaane maxkamaddii sare garsoorayaashii xafiiska garyaqaanka guud ayaa rabitaankii madaxweynaha ka muduceynay ilaa madaxweynuhu wuxuu rabaa Soomaaliya inuu faad xildhibaan noqdo muducibu ku ah halkay ka dhacday dimuqraadiyadda inta leeg iyo hay'adaha inoo dhismaya noocaas kadibna waxay soo saartay go'aan ka dhana
October 2019 waad ogeydeen Sheekh Shariif baa geeyay waliba lagu geeyay magaca xisbiga himila qaran oo urur ah ila wali xisbi muu noqonin urur baa loo aqoonsaday ila urur ila xisbiye malihin wadanka xisbiye ma laha wali xisbi meena gaar laakiin urur dhisan oo fiican oo dastuur leh weeyaan waxay geeyeen maxkamad waa laga guuleystay dawladda waa laga guuleystay maxay ku muujinaysaa markaas waa dawladnimo marka dawladnimadii ayaynu baranno oo aynu aamino ayaana loo diidan yahay oo dad baa doonaya in ay sheeko qabiil iyo laxamo kale iyo maarta dawlad ma jirto iyo kan ma jirto iyo meesha waa kan iyo saan weeye baa la haystaa maxkamadu ayaga madax banaan waxaan isku daynay maalmihii maxkamaddu socotay in xogta maxkamadda la helo geed dheer iyo geed gaanba oo loo fuulay maxkamadda waa laga waayay wax xoga waxay ka mid tahay dawladnimada in sirta iyo la qarsado oo maartay aan cid walba xuloo sheegin oo ay maxkamaddu ay iyadu go'aankeeda kaliya hadhowta lagala socdo markay isfaafinta soo geliso taasi waxay muujisay iyaduna arrin kale waxyaalaha inaga dhiman oo hay'ado aan dhismin way jiraan runtii waa jiraan hay'ad warfaafintu ay ka mid tahay oo waxyaalo badan ka qaldan yihiin hay'ado kale oo maartay si kale in loo dhiso madax banaanaadaan oo inoo ficnaa lahaydo inay madax banaanaadaan way ficnaa wadan waxaynu hanay dhismaya wadan waxaynu hanay dhibaato gaadhay 100% ma noqon karno oo midnimo lihi 100% dawladda waxba inooga abuuran ayada lafteeda hay'adda warfaafinta marka ay leeyahay ma dhismin kama wado warbaahinta qaranka oo way shaqeysaa wariyaashii way joogaan sona wakaaladii wararka ee Soomaaliyeed baa shaqeysaa TV-ga baa inoo shaqeeya wasaaradda warfaafinta shaqeysa waxaan ka hadlayaa wariyaasha waliba ka shaqeeya waa wariyaasheenii waa dadka maxay tahay wadanka u soo halgamay laakiin dhinaca maamulka oo baa xogaa aad moodaa in ay talaabooyinka qaarkood aysan sax ku ahayn ku habooneen warbaahinta qaranka inay kala noqoto marka macnaha waxaan ka wadaa laakiinse hay'ad ahaan waa hay'ad dhisan laakiin ay madax banaanaato institution wadanka oo dhan iyo dadka oo u dhaxeeya la rabaa inay noqoto iyaduna oo ay noqoto warbaahintu public domain waa public domain warbaahinta Soomaaliya qof walba oo Soomaaliya leh waayo waxa weeye markaad fiiriso kulli waxa lacagta iyo mushaarka ay qaataan waa cashuurta ummadda Soomaaliyeed hay'adii waxay noo dhisantay iyaduna iska Somali Civil Aviation Authority hay'adii maamulka hawada Soomaaliyeed oo madax banaan oo guddi madax banaan leh oo hawadeena loo soo celiyay oo aad ogeydeen in sanad ka hor iyadoo hawadeena lahaa hal la xiro oo Hindiya iyo dalalkana hadii kale loo qaybiyay Ethiopia Kenya in la soo celiyay baad ogeydeen oo maanta noo dhisantay hay'ad inoo taagan ay tahay airportdadeeni la horumarinayo qalabka ugu casrisan wadankeena u yaalo hawadeenu maanta aysan baylahayn badeeni ayaa inoo maartay inoo bad qabta admis baa la saaray oo maartay laga dhigay ciidamada Amazon baa admis laga dhigay oo la saaray oo la saaray macnaheedu waxa weeye way qorayeen maalintii baxaya December bay bilaabanayaan oo la saaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaana dhismay wasaaradda arrimaha dibadda iyo guddigeena qaramada midoobay fadhiyay ergadeena joogtada ah baa awood yeelatay oo dhisantay oo arrimahan dheerindirinas dalka marka saa loo fiiriyo uu dhisan yahay oo dawladii institutionskii way dhisan tahay laakiin meelaha aanu ka liidano iyo meelaha ka liigareynano waxay dadku kaliya ka dhigayaan eeda saaraya shabaab halkan qarxisay shabaab sidana no halka maaha halka dhibaatadu kaligeed halkaas ma jirto meesha ay jirto iyo meesha ay qodan tahay barnaamijyada dambe horta aad ugu maqli doontaan laakiinse waxyaalahaas inoo dhisan marka waxaa la rabaa marka cidii si wada lahayd waxaana ugu haboon anigu san marka hore barnaamij koobaad aan ku sheegay cidii taqaana ee wax ka soo qabatay wadankan waxaad ogaataan marka qof cusub madaxweyne cusub markuu soo galo fila Soomaaliya wuxuu wataa horta dad buu horta wataa group cusub wataa oo barbilow jooga oo dana gaar leh asaga lafkiisu dana gaar u leeyahay barashu u baahan yahay waa dad haddan imid ah intaas markaa waxaa ka haboon dad yacni meesha joogay oo wixii ka xumaadayna garanaya oo wax ka bedelaya wixii uu samaadayna sii wadaya runtii oo waxaan yaqaana iyo farsamadan iyo ciladahan iyo maartay isjiidka iyo arinta kale ee maartay dabcan iyaduna aan qodobkan ku afmeeray waxa weeye madaxweynaha isku doonaba hano waxaa laga rabaa in uu shaqo badan ka qabto shuruucda dalka oo ugu horeyso samaynta horta maxkamadda dastuuriga inay noqoto waxa ugu horeeya faylka ugu horeeya uu qabto laba in baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyo sharci kala saaraya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waayo ra'iisul wasaare maalinta uu maxay tahay sheeg doonayo in uu dalka maaragtay khilaaf yar uu dhaco ama talo ay dhahaya ama se keenaya oo dhibaato hor la keenaya ma dhahaya ama wadanka madaxweynaha ka baynu aragnaa oo dhibaato aad iyo aad u xoog badan aragnaa runtii
oo ina qabsatay mana aha wax hadeerta bilowday waa wax soo taagnaa ilaa iyo aadan cabdulla cismaan soo taagnaa ra'iisul wasaare madaxweynihiisa la tartamaya madaxweynihiisa magacaabay dul taagan jagada ka ridayo ka qaadaya maxay tahay sheegay aadan cabdulla cismaan yaa kursi tiray ra'iisul wasaare isagu magacaabay kursi tiray kursi ka qaaday yani maxay tahay qofku han wuu yeelan karaa oo uu sharaxi karaa muwaadin Soomaaliyeed wuu tartami karaa laakiin waa inuu shaqadan iska casila ilaa nin baa magacaabay hadii ninkan magacaabay wada shaqeey waayaan waa inuu banaanka u baxo xisbi furta harka kursiga ka qaado oo marka asaga siyaasadiisa lagu qanaco ha lagu doorto laakiin dawlad dhexdeeda in fighting oo dawlad dhexdeedii dawladnimada Soomaaliya intii gaadhay maxay tahay inta qabsoontay ayaa badnaa ayaa aad iyo aad u badneed berigii dhawato intii gaadhay haddaysan waxba inoo qabsoomi lahayn waa baabay lahayd maadaama dawladnimadii wax badan inoo qabsoomeen marka hore dawladdu ay wax badan qabatay shacbiyad badan ay jirtay shacabka Soomaaliyeed dawladnimo rabeen ciidan dhismay hay'adaha amniga inoo dhisnaayeen garsoorkii inoo dhisnaayeen hay'adda baarlamaanku ay joogto oo aan la kala dirin waxyaalahaas ayaa waxay aad iyo aad u xijiyeen dawladnimada laakiinse hadii mararka qaar kood ay haalahaydeen idinku waad garanaysaan mar lagu kala tagi lahaa meesha mar hore lagu kala tagi lahaa waayo dawlad la dagaalamasa oo haddana waxba la xeerinaynin oo professionalism uusan jirin oo aysan wadaniyad jirin baa meesha ka dhacday masiibo aad u weyn baa meesha ka dhacday marka qaybta saddexaad baa doorashada qiimaha aan eegi doonaa madaxweynahaas la dooranayo maadaama halkan kaga tagay arrimahan ku saabsan dib doorashada arrimaha noocaas waa inuu taaniyada ku haya xataa haddii baarlamaanka Soomaaliyeed ay baabiyaan nidaamka ra'iisul wasaaraha wallahi way fiicnaan lahayd dadka qaarkood qabiil iyo balaayo iyo baas bay ku fakareen waqti laakiinse arrintaas maalmo bay noqonaysaa maalmo ayay noqonaysaa waana laga yaabaa in ay arrintaas dastuur iyo wax doonto laakiin baarlamaanka Soomaaliyeed waa in uu ugu yaraan uu ansixiyaa barnaamij awoodda ra'iisul wasaaraha qeexaya oo sheegaya waxyaalaha uu madaxweynaha kaga warmaan karayo iyo xuska kaga warmaan karayo ama soo isagu ma magacaabay inuu isagu buriyo oo jagada ka qaado waa la ansixiyaa ra'iisul wasaarahaas waa inuu buriyo ilaahu maan aniga ra'iisul wasaare noqdo haddii aan ra'iisul wasaare noqdo oo ra'iisul wasaare la soo bandhigo oo aan maxay tahay burinayo madaxweynaha haddaan ka hor imaado oo aan iska hor imaado madaxweynaha haddaan national interestiga isagu uu fayleed gareenayo oo amniga qaranka iyo dalantid qaranka iyo wadaniyadii dalka iyo xadgudub madaxbanaanidii dalka iyo hantidii dalka ku ciyaarayo ummadda u bandhigaya aanu sheegaya aniga marka xaduudoon hay caydiyaba xaq baan hadii la caydiyo marka xaq baan ku tagay laakiin hadii aan leeyahay madaxweynuhu intan isiya intan qaada iyo kana qaadanaya iyo reerkaygan keensanaya iyo ana meesha iskale iyo waan kulali iyo waan kula haystaa iyo waan kula qabsaday asaga Soomaaliya oo dhan intuu dhex taagay intuu soo xushay in uu yiraahdo boorsada qaado oo walaalo gacliyo maxay tahay carruurtaada reerkaaga aad ayaa ka fiican runtii marka intaas aan ka baxo arrimahaas oo dhan waa inay u tookayaan baarlamaanka Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed maanta waa inay ogaadaan intii dadka ayaa u hadhay intii dadka ay ku hadhay intii nidigu wad soo qabsateen xildhibaan wad soo noqoteen fallaahi xamdu inta nadiba hadhay dalka qofka uu ku haboon waad garan kartaan waad eegi kartaan waad baari kartaan waad ismiyiri kartaan qofka horta sidiisaba waa inuu xisaabtama oo brainstorm gareeya intuu meel fadhiisto waa inuu warqad intii qalin soo qaato uu yiraahdo hebel maxad ku dooran marka ugu dambeysana danaha shakhsiga iyo lacagta iyo waxaas waxa ka weyn xisaabta aakhiro war adduunkana waa iska kooban yahay mustaqbalkaaga caruurtaada meel aad caruurtaada ku soo celisaad u baahatay dad qurbaha ka timid hadaa wadanka joogtana meel aad ku korsato inaad maalin walba Nairobi diyaarad u sii saarnaato Turkiga aad diyaarad u saarnaato Xamaro nabada Markoon nabada Afgooyo nabada Kismaayo nabada Baydhabo nabada Garowe nabada wadanka isku wada furan inaad ka shaqeyso oo aad caruurtaada adigu u doorto oo ay macallimiinta ugu tayada wanaagsan adduunka u soo shaqo tagaan oo la keeno ayaa ka wanaagsan inaad maalin walba aad diyaarad sii saaran tahay line ugu jirto fiise wadanka la leeyahay iyo waliba bahdilaad qaybta saddexaad dawladda